والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إلهي ومع سبحانه وتعالى نقول نبغي إيمانك عمرك نسيي نفت ذا إلهي وقدر إنه لدى أيوه سنة كي إسلام كي يكون أفر بقولي أفرتني أفر أكلم من سدح مع الموت مسافر مع الموت بيش هذه الصدن يكون مات وحمو من كمركة وإنه مركز تا أو سنة ساعة ولا ماذا مثل وقت جيسة ولا ماذا أسبوع ولا ماذا بالها ولا ماذا السنة ولا ماذا إنه وقفات تأمل يتدبر وفي الفيرن هيو أحواشي صومرة وكفاية بيسن هيو ونكو عبر قاطال الرباه لأن الروح إنه يصير كو عبر قاطال الرباه وحا صعدا إنه يصير عبر قاطال مفيعنه. الله سبحانه وتعالى زمن كان ساعة صعدا وقدري حويا عمر جينا لصعدا سنة بعد مان هي عمر جينا السنة باقو كورلي عمر جينا سنة باقو كورلي سنة باقو كورلينا يكون ويسين هي عين الملكمود اللواني dadka waxaa la arkaa inay ku farxayaan inuu sanadku u socdo waxyaalo badan ay ka faa'iidahayaan la arkaa ay isleeyihiin maalan waxyaalaad gaari doontaan fawaa'id baad heli doontaan ay isleeyihiin maalan wax badan baa idii xaqiiqoobi doonaa laakiin dad badan iyagoo xaqiiqowgaa sugahaya ayaa la arkaa inay caalamka tagaan marka waxaa la doonaya markaa ruux ilaahi hadduu naftii u daayey oo waqtigiisii aan la gaadhin uu ka faa'iidaysto xaaladaha u marahayaan markuu sagootinhayo sanad uu ku xusuusto inuu cumrigiisa u socdo markaa uu isweydiiyo uu naftiisan la xisaabtamo sanadkan hadda tegahay maxaa xaaladaadu say ahayd lianna xaaladaada wax kaa yaqaano malaha adaa ugu aqoon badan markaa kadib aad xisaabto adiga aad diyaargarow markaa haddana naftaada kula xisaabtanto geedi socod cusub aad bilowdo ilaahayna xaggiisa aad u dhaqaaqdo subxaanahu watacaala shayga ugu horan rabo ruuxa inuu daymoodo degdega adduunka uu ku socdo shalay sanad baa noo dhammaaday maantana sanad ku xigaa dhammaaday wa ka'annahaana wixii oo dhanna degdeg bay ku tagtay oo ruuxii sii fiiriyo xaqiiqatan habeen iyo maalin ayuu u malaynay marka taasi dadka caqliga badan waxay ka fahmayaan inay cumrigooda uu socdo adduunkana uu tegayo إلهنا سبحانه وقرآن وحكيل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سماوات كي يلولك أبو رضا يهبين إمال وسائسوا إذا نسدوا الصعداء ذاتك عقلك بضان وعقلك وصاحبك أي عيرويهين كفير سمالك الأولى لي إيه مالك يرى هيت يهدى وذاتك قارئ ويليهين afartan iyo konton la dhaafay markaa kadibna waayeelnimo iyo geeri aad lianna naftaasay u xoog badan tahay markaa dacfiga kugu dhaco dib intaa nolol lagu siiyo ayaa dareemaysaa adduunka inaad ka socoto noloshii markaa way dhammaatay buuggaagina waa la laabay wa ka'annahaa ilbiriqsi iyadoo ah
إلهنا سبحانه وتعالى أدونك الوقت المامي فحوي لوضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح إلهي بيو كتل مامي روب سو داي روب كاسو عريي داقي كدب قرح أي كل عضي داقي إنجيجي أي دواش اللي تكتي dareemi kartaa dadka baadiyaha joogo muxuu ahay arrintaasi way arkayaan si xaqiiqa ahaan marka taasi waa adduun weeyaan dad badanna la tagtay dad badanna ku mashquuleen si ay raaxadeeda u helaan shahawaadkeedana ku xeel dheeraaday taasoo ruuxa haddii uu caqli qabo uu arkahayo inuu dhaan dabangaallo yahay oo dadka ku dagmayaan laakiin wuxuu ogaanayaa adduunka isagoo saas ah laga wadaya dadkaasi saa ugu raaxaystay oo raaxadaasi dhalanteedka ah ka dhigay wax xaqiiqi ah way ka tageen way ka xanuunsadeen waayeelay ka noqdeen way ka faa'iidaysan waayeen markii dambe marka xaqiiqada adduunku waa saas weeyaan maalmaheedana way tirsan yihiin waana ajal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sameeyey wayna yar tahay adduunka hataa haba dheeraato dadka muxuu ahaaye aan caqliga leen ha u arko inay dheer tahay laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan adduunku waa wax yar ilaahayna subxaanahu wa tacaala markuu ku sifeynhaya addunya laba macnay culummada ku fasireen الدنيا ومن الدنو تي دويت دمانيس ومن الدناءة تي حميت لو هذا وصفه إلى هذا الدنيا إلهنا سبحانه وتعالى مركو كحكايون هي نبي الله موسى عليه السلام آل فرعون مركو الله دري نمبا كجرة أو مؤمن آل فرعون وقال لها قوم كيس يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار الدون كان راحية بندي ماشى الوصف معنا اللي تشوفها هنا آخره روحوا إلهي تنسينا نعيم بقوارية روحي جهنم الله قدر إنه قلنا عذاب كجريات لبدا الدار باللوك البدية رسولك صلى الله عليه وسلم وأودر دار بيجي الصحابة ديس أنا كم إذا إنه كلها ابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الدنيا واحد كل قطابي مرتين مسنين تشيد قوين هاي مسافرة وكان ابن عمر وحديه جري يسوى أرين كاسي رسولك وكلها الله يسوى كردو حيا يقوليه جري إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح دادوا بريزته إنه قبل كقول على السجن هداد قلب يستن الواقع بريها السجن حديث كاسو نقولين هيو إني يبدل ذا أن أدون كولا إني سوق عبط أو بني آدم أسكر لقو إنه سفر سريع بس أودي الجروب هي سفر رسول صلى الله عليه وسلم وحول ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها أنا أدون علمي عنه في الدنيا روح جديد سارة وجد كده جديد كهرسده حدنا جديد كيسفوله وكتجي يقول عيسى عليه السلام حلقوا لي أصحابتي سنود هاي الدنيا قنطرة تعبروها ولا تعمروها الدنيا هو بوندو جود بويري لكن هدجنا روح أمريكا الدنيا لم يجي هاي بودي روحي إسسية أو الدجا روح هير كوركي جوري كلستين هير كبضع هذا جوري كلست جوري جا موسولاني الدنيا هو أساس النبي الله عيسى عليه السلام مركا سند بعد ما عضي
maxaana laga rabaa markaa muxaasaba naftaada inaad xisaabto ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsun maa qaddama ligad wattaquu allaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun dad badan baa tegey oo dhulka hoostiisa maray adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inaad noolaato dadkaasi waad raaci doontaa intaadan raacin waxaad naftaada berri hormarsatay ka fiirso maxaad ilaahay la tegi ilaahayna camalkaaga waa og yahay maalinta qiyaamana miisaankaa la keeni doonaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay'a wain kaana mithqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wakafaa binaa xaasibiin miisaankii cadaalada la dhigaya maalinta qiyaama naf la dulminna ma laha wax kastoo yarna waa la keenaya kitaabkaagaa markaa lagu siinaya wax kasta ay ku qoran yihiin yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suu'in tawaddu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida maalinkaasi wax kasta ay naf samaysa way helaysaa markaa naftaada waa inaad xisaabto dadka caqliga qabana waxay og yihiin in allaha subxaanahu wa tacaala bilmirsaad waan lala xisaabtami doonaa wax kastana waa la weydiin doonaa markaa ruuxii naftiisa xisaabo intuuna xisaabta ilaahay u soo istaagin xisaabta hadhowta way u fududaanaysaa jawaabna wuu helayaa ilaahay idinkii meesha la geen doonan meel wanaagsan bay noqonaysaa ruuxii naftiisa sii daaya ee hawadeeda raaciya waxay jeceshahayn inuu xaqiijiyo isku dayo isagoon la xisaabtamin waa muxuu ahaaye ruuxaasi waa nadaamoonaya waa shallayto iyo qoomamo ayay noqonaysaa muxuu abaalgudkiisa markii qiyaamo la istaago taasoo ku hoggaaminayso hoog iyo muxuu ahaaye halaag markaa ruuxii raba inay xisaabta u fududaato maanta naftiisa hala xisaabtamo cumar radiallahu canhu baa laga wariyey xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war naftiina xisaaba intaynan xisaabin acmaashiina miisaanka saara intayn laga miisaamin markaa waqfatu muxaasaba la rabaa naftaada inaad xisaabto ruuxii naftiisa xisaabteeda badiyana oo wax kasta weydiiyo waxay cuni waxay samayn waxay ku hadli haween naftiisuu hananayaa hogaankana wuu u qabanayaa xisaabta ilaahay agtiisana u fuudaanaysa ruuxii naftiisii daayo hadhowti kaday ku noqonaysaa arrimahaas waana halaagsamaya sanad baa dhammaaday sanadkaasi waxaa la arkaa dunuub badan inaad gashay waadna gelaysaa rasuulkana sal allahu alayh wasalam waxau yidhi kullu bni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun markaa towba wa istikfaara lagaa rabaa sanadka waa dhammaanayaa waxaad sanadkaada ku khatimataa ilaahay inaad u soo noqoto subxaanahu wa tacaala ood ilaahay dembi dhaaf weydiisato waana usuulu sharci weeyaan in ruuxa dembi dhaaf ilaahay u weydiisto uuna u tooba keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala daacooyinka gadaasheeda iyo markuu waktiga daacooyinka ay ka dhammaanayaan xajka markuu dhammaanayo ilaahay dikrigiisa badiyaa la yidhi faidaa qadaytum asalaata fadkuru llaha ramadaanka markuu idinka dhammaado ilaahay dikrigiisa badiya ee takbiirsada rasuulka salaad kasta dabadeed istakfirullahi u dhihi jiray marka ruuxa waxaa la doonaya mar kasta inuu muxuu ahaa sunnadaasi uu daa'imo habeenkii markuu seexana istikfaarta u badiyo markuu waaga u baryo oo ilaahay subxana wa tacaala iftiinkaa tuso istikfaarta u badiyo salaadaha markuu dhammeeyo cibaadaadka markuu dhammeeyo markuu sanadka dhammaanayo bisha markay ka dhammaanayso istikfaarta iyo towbadaasi inuu ku dadaalo
وصداسي وقوة نولشي صدن مركا روحه وصدا النقضة إلهي سبحانه وتعالى خير بدن أي أفضينا مركا النفط هذا باللير استاك أو نفط هذا الحساب نفط هذا الحساب وقفض الله وصدحات وحويا إن ديار جرو عن الله لأن السنوات كمان هيو وحين لو جيسينا يعني عمر جن كمان هيو سافرتنا عن كجرو وسافر لمان يسوع هو يقين حتى الكافر يصدق ويوقن إنه تجهي لكن هذه مؤمن كي قالك كل دين قالك إلهي سبحانه وتعالى ميلها لا قوة مؤمن كان إلهي ذيك ميل في عمق صعب وفي زمرك استعداد كاسي وحقوق حبارية أو ضدك كل شيء ضدك كل علي أصحاب هذه آوي ولا تجي وحكى معها ما قد سقوتي سي سنة كي تجي هي سنة كان تجي دونه ضد قالي قوها وأصحاب هذا الجعلان ما قد تكتي ما قد جنازة أي الحاضر كائن مساعد كقيب قاضتين وكعب سن ميسي المركة مالكها إنها تجادو هذيك اللي قاضو أو لغو لقو لغو آسو marka waa inaad arrintaasi loo diyaariyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aktharu min dhikri hadi min ladat mawdka ruuxa ma badiyo illa khayr buu ilaahay subhanahu wa ta'ala u ziyadiya waqfada kale xawayaan ilaahayna ku shukriyo subhanahu wa ta'ala nicmada uu nasiyay waqtigan soo gaarsiiyay oo awoodi aan ku cibaadeysan lahayn aan dambi dhaaf ilaahay ku weydiisan lahayn aan salaadi ku tukan lahayn dad badan oo arkaa inay xanuunsan yihiin isbitaalada jiifa oo muxuu ahaay cudurro ilaahay ku imtixaanay allah ka caafiyo oo qaban karin tamanin laha in ay muxuu ahaa ay hatta ay tukan karaan ragcad iyagoo taagan mise iyagoo fadhiya haday tukan hayaan iyagoo jiifay tukan hayaan adiga ilaahay subhanahu wa ta'ala xibnahaaga ku nabadgeliyay caafimaadka leh waqtigaasna ku nooleeyay noloshiina ku daayay inaad ka faa'iideysato markaa waxay kugu noqonaysaa amar uu aqliga keenayo inaad ka faa'iideysato markaa waqtigaas daacada ilaahayna uga faa'iideysato aad ku toosnaato sharciga ilaahay diinta ilaahay aad u khidmayso rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu nagu baraarujiyay in aan ka faa'iideysano nolosheena iyo dhallinyarnimadeena iyo caafimaadkeena iyo hodantinimada iyo faraaqa aan haysano aan ka faa'iideysano maanta waan noolnahay war intaadan dhimanin ka faa'iideyso maanta dhallinyaraan nahay intaad dhallinyarada tahay aadan gaboobin ka faa'iideyso maanta caafimaad baad qabtaa intaadan xanuunku soo dhigin ka faa'iideyso maanta waxaa la arkaa inuu ilaahay gacantaada wax geliyey oo hodannimo ilaahay wax ku siiyey intaadan faqiir noqonin ka faa'iideyso maanta faraaq baad haysataa oo waqtiga ilaahay ku siiyey intaadan shuqul kugu dhicin aadan mashquulin ka faa'iideyso ruuxa muuminka markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligaa uu siiyey iimaanka uu siiyey waqtigiisa uga faa'iideysana ilaahayna ku shukrinaya subxaanahu wa tacaala waqfada u dambe aan rabno inaan isku buraarujinno waxa weeyaan ruuxa inuu go'aan qaato balaanna uu samayso takhdiid absocodku wax u qabsan lahaa inuu go'aan gaaro sanadka soo socda inuu naftiisa uu u bedelayo tii wanaagsanayd hadduu wax xun ku jiray uu ka dhexbaxayo waxa xun hadduu khayr u wadana ku ka badan uu sii wado hadduu dib jir ahaana uu horumar gaaro hadduu ciyaar uu ku jirana dhab uu u dhaqmaa hadduu cajis badnaa oon dhaqaaqayn ruuxi nashaad inuu isu yeelo hadduu mugdi ku jiray inuu nuurka u soo baxo iimaanka hadduu macsiya ku imtixaanana ilaahay daacadiisa uu soo baxo marka aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo acmaashiisa oo dhan inuu muxuu ahaaye xaalad ka wanaagsan inuu noqdo ruuxa uu isbedelo
hadduu salaada dib dhigi jiray salaadaha qaar uu ka tegi jiray uusan diinta barashadeeda daciif ku ahaa wixii oo dhan inuu ballan cusub uu galo uu ka wanaagsanaado taasoo la arkaa inuu ilaahay subxaana watacaala albaab fara badan oo khayr ugu furo laakiin go'aankaasi waa in ay la socdaan arrima sidii aad u dhaqan lahayd aad u dejisato haddaa rabto maalan qur-aanka maadan xifdisnayn qur-aanka rabta inaad barato qur-aanka nidaam u dhigo sideen u bartaa yaan la xiriiraa sideen u kala xifdiyaa sideen u muraajaciyaa soonkii maadan soomi jirin sunnada ah soonkii soonka ahaa maxaan sameeyaa ma bil kastaan 3 maalin ka soomaa mise isniin waxaaga inaad dejisato balaankaaga inaad qorato si faahfaahsan aad u qorato aadna ku dhaqato ilaa ay muxuu ahaay geeri ku timo asbaabta inaad qaadato ilaahayna aad tala saarato marka waxaa la rabaa go'aamadaas adag in la qaato balaankaana la samaysto la ogaado markaa siday maalmaha u socdaan adina waa tegaysaa wa kullu yawmin madaa aw laylatin salafat fiha an-nufuus ila al-ahjali tazdalifu walanin shaacir maalin kasta oo kaa taga isa habeen kasta oo ku dhaafo malakumud dhaafitaanka ay ku dhaafayaan malakumud ku dhaweynayaan malakumud ayuu ku dhaweynayaan yasurru al-mar'u ma dhahaba al-layali wa kana dhihabuhunna lahu dhihab ruuxa uu ku farcaya habeenada tagayo mishaarka uu qaadanayo bisha dhamaad sanadkii ritaanka la siinayo dawladda xusoo celinayso waxaasna uu ku sii xisaabtamaya laakiin kuma xisaabtamayo inuu malakumud sugayo uu ku faraxsan yahay laakiin maalmahaasi oo taga iyo waqtiga uu gaaro waxa uu qaato haduuba gaaraba malakumud buu sii dhawaanaya malakumud ayuu sii dhawaanaya marka xaqiiqadaasi inaad fahamto malakumudna yaraan iyo weyni oo malaha inba maalin wuxuu ku dhacay niyo waayeel baad noqotay beeraha la beero markay bislaadaan waa la goostaa lama daayo ruux bislaadaa tahay hadda malakumud baad yaa diyaar ku ah kii dhalinyarada ahaana wuxuu yidhi waxaa la arkaa inay beertii iyadoon waqtigii biseelka gaarin ay aafo ku dhacdo la xaaqa la arkaa marka malakumud dhalinyarnimo iyo yaraan iyo waayeelnimo waxaasi maaha waa wax ilaahay u qadaray subxaana wa tacaala waqtigaa hadduu soo dhammaado waa dhalinyarada daaya 60 ha gaaro la dhihi maayo mise waa ilmo yare daaya dhalinyaraha noqdo la daa la dhihi maayo waa tegaya ruuxaasi ilaahay xaggiisuna aadaya subxaana wa tacaala marka inaan ka faa'iidaysano war meeshii aynu degi lahayn hadda inaan sii dhisano oo daaca lagu dhisanaya guryo la dhisanaya maaha iyo dabaqyo la taaganhayo iyo lacaga bunuugta laga buuxsanayo taasi la degi maayo ee adduunkaad uga tegaysa tan aad degayso waxa weeyaan waa tii daacadii iyo salawaadkii iyo sadaqaadkii iyo xajkii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ayaa iyo dhikrigii ilaahay subxaana wa tacaala iyo istighfaartii ayaa bulukeetiyada iyo muxuu ahaaye lagu dhisahay guryaha jannada lagu dhisayo waa taa weeyaan gurigaas halkaa lagu dhisayaa marka waa inaan dhisanno meesha aynu ka degi lahayn jannada ilaahayna subxaana wa tacaala aan weydiisanno inuu jidka noo fududeeyo markaa sanadkii waa dhammaanhayaa adigana waad la dhammaan doontaa goordhowe maxaad diyaarsatay xaaladaada say ahayd ma ka fiicnaan doontaa mise waad ka xumaan doontaa waa go'aan adiga kuu yaallo haddii aad go'aanka aad qaadan lahaydna dii kuu ficneed waa inaad qaadato haddaadan muxuu ahaaye diyaar u ahayn haddii ugu xisaabta ilaahay waa ku sugaysaa subxaanahu wa tacaala intaasaan kusoo koobaya kelimadaasi waqtigaa yar dheer qaadatay taasoo keensatay inaan ku baraarujinno walaalaha maadaama uu sanad naga dhammaanayo kitaabkeena waxaan soo gaarnay aliimaanu bilmalaa'ika waan soo dhaafnay waxaynu ka hadlaynaa aliimaan bilkutub taasoo iska yar insha allahu tacaala aan waqti kooban aan ku qaadan doono inta nooga hadhay 4 saac annaga 20 daqiiqo ka dhiman faslun buu leeyahay sheekhu ونؤمن ونرميننا بأن الله عز وجل تعالى إلهي السري أنزل إن سود جيان رميننا على رسوله رسوشي سنكسود جيي كتبا كتب تاسو حجة على العالمين
وحجة كوعة أو وحو إلهي ربي وشيغيو هدي كل إحدان حجة كل نقون هي إيه ومحجة طريق توصن كتب تاسو طريق توصن وآه للعاملين كو عمل فلودين إلهي قاطو يعلمونهم الكبر يا رسول شبيهة كتب الحكمة حكمة إذا كبر هيان ويزكونهم إن كنت تزكيين هيان النفط هذا صدقك إيو وناك الكبر هيان كتب تاسو إلهي سود جي سبحانه وتعالى وركاو حرمينا وليهاي شيخو إنه إلهي سبحانه وتعالى رسول شيسا وكسو دجي كتب تاسو حجة عدين وقدرنا إن هلين هذي خلافان إلهي أكتي سبحانه وتعالى هي طريق أي راعان ضدك كو عمل فلا تلك إلهي قاطع كان برته إذا كبر ضدك رسوشا كبر أيام ضدك حكمة إيو ويزكونهم أي برهيان عدالة صدقي أي برهيان تبتاسي كقاضنا عدالة صدق إلهنا سبحانه وتعالى آيات نردن بخشي دونا وحولي يا شيخ ونؤمن ونؤمننا بأن الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى سري أنزل إن سودجي مع كل الرسول رسول كستا إلهي صدر كتابا كتاب إنه لسودجي لقوله تعالى والدليل لقد حقيقية أرسلنا ونصدر رسولنا رسول شأننا بالبينات معجزات يحجوين بالله صدر وأنزلنا ونصدجنا معهم لتيرا فوضى الكتاب كتبت من نصدجنا الكتاب أنت ودينسي وكل عاية كتبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يول ميزان عدالتي عن كتابك عدالة وصدجنا ليقوم الناس ضدك إنه يستاقان بالقصد بالعدالة العدالة يستاقان العدالة يكون طبعا لولا شرطان عدالة يكون سمت بركة الله سبحانه وتعالى ساشت لي رسول كستا كانوا سؤالي من الكتاب ونشيق دونا انت كأونا كتبت شيخ مركا كتب تاسي ولاهي وأنزلنا معه الكتاب والجنس الرسول كستا له سؤالي ونعلم من هذه الكتب وحن كنا قانا كتب تاسي ولاهي نوشيق سبحانه وتعالى كو التوراة كتابك التوراة التي توراة أنزلها الله إلهي وسودجي تعالى سري على موسى نبي الله موسى وسودجي صلى الله عليه وسلم وهي توراة أعظم كتب بني إسرائيل كتبت بني إسرائيل لو سودجي كي أوينا نبي الله موسى عليه السلام نسودجي فيها كتاب كاسي واحد حديث هذه هدى هنون ونورا ونور افتين هنونكا نوركا أو يحكم يكون حكومة هيان بها توراة حكم بها توراة يكون حكومة هيان النبيون النبيين الذين كوي أسلموا هجان سمي إله هجان سمي للذين يكون حكومة هيان هادوا يهودوبي ويهود أها يعني كتابك يهود النسجي والربانيون علماء والأحبار الربانيون وعلماء يجعل محكو حكومة هيان كتابك التوراة كي حكومة هي وكو إلهي كعب صلى سبحانه وتعالى وحين حكومة هي إلهي باكتل بإني كتابك حفظيان وبما استحفظوا إلهي كتل سبحانه وتعالى إن حفظيان توراة بما استحفظوا من كتاب الله كتاب إلهي طلب كلا يطلب بإني حفظيان وكانوا وحاها العلماء عليه على الكتاب كتاب كدشي شهداء قوة مرك ومرخاتك كوارنتاسي مركعة أي هايين آيات مركعة وحشيكيسا توراة إنوها كتاب إبراهيم إسرائيل الله صديقي وينا هنون النور إلهي ويالي أنبياء إلهي وقال سمن يكون حكم هايين علماء غير بني إسرائيل يكون حكم هايين كواسو إلهي وقال سمن يغنى لأن التوراة هي إنجيل علماء وضع الأمر إنه يحبيان أي هايان سيدا درتد
ayuu khilaaf u galay isbeddelna ku soo arooray loo geliyey la sheegi doonaa laakiin kitaabka qur'aanka ilaahay baa xifdiyo ballan qaaday wa ilaa yawmina haada ruux kasta oo ku dhiiraday inuu bedelo ugu fadeexoobi jiray oo faxshirmi jiray laakiin kutubtaasi ka horreysay injiil iyo towraad gacmo badan baa galeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ishaari doonaa aayadahan haddaynu soo maray marka kitaabka towraad oo ilaahay kusoo dejiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu hanuun iyo nuur u yeelay kitaabkaas ay ku xukumahayeen ambiyadii ilaahay u hoggaansamay iyo culummadii ilaahay u hoggaansamay lianna ambiyada markii lagu soo dejiyey kitaabka culummadii baa laga amray markay ambiyada tageen inay xifdiyaan kitaabkaas ee hayaan aan lagu ciyaarin bima istuxfiduu min kitaab illaahi markaa waa bisababi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dalbay kitaabta xifdintooda laga dalbay culummadooda inay xifdiyaan oy ilaaliyaan oy dhaqaaleeyaan oy ka ilaaliyaan wax isbeddel ah iyagaa laga dalbay arrintaana marag bay ka ahaayeen laakiin mar dambe isbeddela ku dhacday kan labaad waa alinjiil kitaabkii injiilka alladii injiilkaasoo anzalahu allahu tacaala ilaahay ku soo dejiyey calaa ciisa sala allahu calayhi wasalam wa huwa kitaabkaasi musaddiqun waa mid waafaqahayo oo rumaynhayo litowraati towraat oo rumaynhayo inuu kitaabka ilaah yahay wixii ku soo arooray wa mutammimun laha uu dhammaystirahayo ومتمم لها كتابك التوراة دميسترها إلهنا حكيه سبحانه وتعالى القرآن وآتيناه وين السيني نبي الله عيسى الإنجيل كتابك إنجيل بين السيني فيه حاله يهي حديث هدى هنون ونور النور ومصدقا حاله يهي مد وافقها يو كتابك التوراة كهري وحير مويا ونسخي ونقول رمين هيو كتاب كاسي إنه كتابك إلهي يهي وكجر نقول رمين هيو ومصدقا حاله يعني مثل ما لما بين يديه كي كهري أو من التوراة توراة حال وهدى تابقى صوهنون إيه وموعظة وانو للمتقين كوا لك عبصدا كوا سنوحوا واني إيه وقل نقضي هنون كوا ساكو انتفاع وانو المتقين تكو انتفاع يعني قال عن المنافق كما انتفاع يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لله سبحانه وتعالى مركا موعظة للمتقين وحلوله لأنهم هم الذين ينتفعون به وحكوا انتفاعهم هنونك إيوانذوا متقين كتابك التوراة إنجيل مركو سودقي كتابك التوراة وحي أحكامتي سودن ملمو إيمان قاربوا النسخي laga daayay dadkii reer nasaara iyo dadkii reer yuhuud ee noolaa saasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waliuxilla lakum bacda aladii xurima calaykum nabiyullaahi ciisa calayhi salaam kitaabkaasaa lagu soo dejiyey si ayni ku xalaaleeyo idinka bacda aladii xurima calaykum kii barkii oo lidinka xarimay si ayni ku xalaaleeyo marka wax xaaraan ku ahaa kitaabkii towraad ayuu u xalaaleeyey نبي الله عيسى عليه السلام في سورة العمران شيء وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون كيوله نبي الله عيسى عليه السلام مركا waxa ku jiro dhan wax waafaqahay towraad iyo waxa waafaqeen bay ku jireen oo la nasakhay wixii towraad ku jiray dadka xaraam ka aha ayaa qaar loo xalaalay kan nabi الله عيسى kitaabka loo soo dhiibay oo loo soo dejiyay نبي الله عيسى وقرني سان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بكهري وانا أبشاري إن نبي الله محمد صابح دونه وانا إلهي نوشي جدنا سبحانه وتعالى إن صفاتك نبي الله محمد لغو الشيغي توراة إنجيل إن قريان نسأي كل حيان أي دهان روح الوليد شيء استقماها دهان عنادا وجحدا يجو كم ضحك كان هيو إلهي سبحانه وتعالى إليه سي أحكامتيس مركا إلهي سبحانه وتعالى إنجيل نبي الله عيسى وكسود الجي إنجيل نوحو وافقي توراة إيرموية الله نسخي هنا أرمي إنه كتابك إلهي ويهي نبي الله موسى وكسود الجي وآتيناه ونسينا نبي الله عيسى الإنجيل كتابك إنجيل بنسينا فيه حال حديث هدى هنون ونور
ومصدقا حاله يمد وافقها يقول منها لما بين يديه كي كهري من التوراة مع ذلك إلهي سبحانه وتعالى يسقو وهدى حنون يوم موعظة وأنا للمتقين كتابك التوراة كمو موافق الأمان وحيالة قارئ أيو وحلالي دتكي لو سودتي نبي الله عيسى ولي وحلا سيأين كحلالي لكم إذنك بعض الذي كي بركي حرم عليكم لذلك حرمين التركين والزبور وإنكي صدحات إلهي أوسيي سبحانه وتعالى الذي أتاه الله إلهي أوسيي داود صلى الله عليه وسلم داود السيي إلهينا سبحانه وتعالى القرآن كل شيء زبور وآتينا داود زبورا وحن سيدنا بالله داود زبور باصيني صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام إلهي نواشي سبحانه وتعالى لو ميل بالقرآن كل شيء لو ميل أي إلهي القرآن كل شيء أولا وحكو شيء إلهي سبحانه وتعالى سورة النجم فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب وهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ماشي أسوق شيء صحف موسى إبراهيم ماشي لبعنا سورة الأعلى آخر كده صحف إبراهيم وموسى ماشي أسوق شيء إلهي سبحانه وتعالى وأنا صحف تاسي إلهي باسيي نبي الله إبراهيم نبي الله موسى عليه السلام كانوا بيشنات والقرآن العظيم الذي قرآن كي أنزله الله إلهي يقصد على نبيه محمد خاتم النبيين نبي كوا خاتم كوا ختمي أو حري كتاب كاسو هدى هنونا للناس تتكواه يو بينات آيات عضعض ومن الهدى هنون والفرقان كي كلبحن هي حق إيه باطل كاه فكان وحوا كتابك مصدقا كي ورومين هي وافقها هي لما بين يديه وحي كهري من الكتاب من الكتب كتبتي كهريسي إيه ومهيمنا عليه مد عدين هي وحي كتب تاسي كجري أو تحريفة كل حين شرع إلهي كاسو كنسان هيو وحي كتبتي هرودن كجري زيادة كدر صدي وحبضنا وكم من النسخي هذا مهم مركز والمدور معنيك فسرين شهيد بينهم كتاب كاسو مرخاتك وكتب تاس كتاب كاسو مؤتمن هو أمني كتبتي هرج كتاب كاسو وحي كتبتي هرنا الشيء وإحنا كتجي وإحنا الإرادة كدري وإحنا نسخي كتاب كاسو إلهي سبحانه وتعالى وكختي من كتبتها فنسخ الله به إلهي وكنا نسخي به بهذا الكتاب القرآن جميع الكتب السابقة كتبتي تكتورن بكون نسخي تكفل إلهي وكفال قاضي بحفظه حفظنتيسا يوك حفظنها يا عن عبث العابثين كو عيارها عيار توضع كإلالي وزيغ المحرفين هو وحل حي بعض اللي حتانكود إلهي كإلهي سبحانه وتعالى وقرآنك يقول إن نحن نزلنا الذكر أننا سود جنة قرآنك وإن أنه له قرآنك سيلا حافظون كو حفظن هايبان وفي ذلك الدليل بأكو جلتاه مؤمنين الأمر هايو هداد حفظن ويدان إلهي داد حفظيو كيني إلهي مرة دون نوع حفظي إذن كان حفظيو حفظي صلى الله عليه وسلم داد حفظن ويدان إلهي داد حفظيو أيو كيني لأنه محلو حفظي كتاب كاسي وإلهي وكفال قاضي حفظن تيس لأنه كتاب كاسي سيبقى وباقي هان هيا حجة سواء على الخلق أونك إلهي أمور أجمعين الأمان إلى يوم القيامة حجك وأهانا روح الديدنا حجك النقنية روح راحنا حجك النقنية والقرآن حجة لك وعليك مركا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كاسو كو ختمي قرآن كاسو كسو دجي خاتم النبيين نبيين كي ختمي مسكين لو ختمي كتاب كاسو هنون ددك وآه إيا آيات عضعات هنون آياتها سو روحا أكلا صارها يبادل كي حقه كتاب كاسو الرومين هاي كتب دي كوريسي ووافقها يو
وحي التوحيد أو كوافقي وكصابسن عقيدة وحي كصابسن أحكامتنا قارن وكوافقي قارن وحوين ونسخي كتاب كاسو ومهيمنا عليه كتب تاسي مرخاتك وحنا ليران الشيء فنسخ الله إلهي وكنا سخي به كتاب كاسي جميع الكتب السابقة كتب تكتور لنا يكون ريسي وتكفل إلهي وكفال قال بحفظ كتاب كحفظنتيس وكحفظ إلهي عن عبث العابثين كو عيار تود قعمها لقى كتبت بدله وزيغ المحرفين كو وحليحينا لحيتان كود إلهي وكيلاني ويري إلهي سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر أننا سودج إن قرآنك وإنا له لحافظون أننا نحفظين أنه إلهي محو حفظنا إياه وأوبلا قاضي لأنه كتابك سيبقى وباقي هانا حجة سواء على خلق إلهي أجمعين الأمان إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة كتبتي تكتي فإنها كتب تاسي مؤقتة ومل وقتي بأمد وقتي وانت وقت قاسو ينتهي كل أمان هيو بنزول دقيتان ما كتاب دقيتان كي ينسخها نسخة دقيتان كي سيكون أمان هيس كتابك النبي الله موسى كتابك إنجيل كل أمان وقت يس مركا كتبتي تكتي ووقت وضو ووقت لحدي كل أمان هيو كتابك قدم بيجا نسخها يمركو صدقه وقت وضو أمان. أما الكتب السابقة فإنها كتب تاسي مؤقتة ومل وقتي بأمد وقت ياسو ينتهي كل أمان هي بنزول ما كتاب دقيتانكي كتاب كاسو ينسخها نسخها ويبين عدينا ما حصل فيها وحد عي كتبتها هوري لحظة ومن تحريف بدلتان إيوه التغيير وبدلتان روح شيء لقل لحيو حق معنى هانا اللوح اللحيو حق لبدي هانا اللوح اللحيو وسيدي كتبتي توراة إنجيل كل عظيم. ولهذا أرنك درتي لم تكن مين أهاني كتب تاسي معصومة مثل لقى إلالي منه التحريف كاسي بدل كامل لقى إلالي مين أهاني فقد وقع واضعي فيها كتب تحريف تحريف واضعي إلا بدل يوح والزيادة إن وحلقو دري والنقص وحلقو قوي إلهي نوحي القرآن من الذين كوي هادوا يهودوبي يحرفون الكلمة كلامك بيليحين هيان كلامك إلهي عن مواضعه هذه لو قلت لك اللفظ جيس في كتريان أي كبدليان مسمعنيه سيبدليان إلهي سبحانه وتعالى مركا أي كعدي كوا يهودا أو علماء بعض دوا كوا إلهي تكيس إلهي كتوص معها أحبارتي رباني يا وشرشي يا ربانيين يحرفون الكلمة عن مواضعه كلا كلام كبي كبدليان موضوعيسي إما هكبدلان لفظي أهان أو اللفظ كلها قرآن مسمعنيه هبدلان مثل لفظه ولفظه معناه بدلان. نعم تحريف كودن waxaa kamida sifaadkii Ilaahay uu soo dajiyay uu ku sheegay Nabi Ilaahay Muhammad sallallahu alayhi wasallam in ay bedeleen mise ay dhaheen isaga ma lagu wadin nabi kale ayaa lagu waday marka Ilaahay marka subhanahu wa ta'ala bedelitaankaas markuu ka hadlay waa kan u goodiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waylun waadin naareed ayaa u sugnaaday lil ladina ardaaladii يكتبون الكتاب كتابك قرهي بأيديهم كعمود قرهي أو إيجاز كقرنهي ثم يقولون دهي هذا كان عن قرني من عند الله إله يكتسك هذا حيساء يليان ليشتروا إليه كوكتان به كاس قران ثمنا قيمة قليلا يأدونه كوكتان فويل وهذه النعرات أي أوصل لهم يوصل نادي مما كي كتبت أي قرت أيديهم درتور أي وادي النار كوجل هيان وويل لهم كلام وسبيه وادي النار وكله مما كي يكسبون حواليه كسبان هينا أي دتك كعنا هينا وادي النار أي درت كوجل هيان كماش عسي ظلم جوده دتك يظلمين هينا لو وجوه وإله عدي سبحانه وتعالى وكوي دتك دين إلهي كله هيين يكل حنين معناها إنه يقول حنين لفظي أنه حنين يجلس كقرن هي مكان وحي قرآن بيدهي وكتاب إلهي كو عمل فلا كان لبعضنا وحي قرآن بيدتك كذا هين ظلمي قابل وفرس وكا إلهي سبحانه وتعالى وحوية وهو بلنقاضي وقودي إن أي محوء هاي وهذه النار كقل هيان وحي قرآن درتي إيا وحي كسبتين درتي فويل وهذه النار أيها للذين كوي أردى الذي وصقنا واسوا يكتبون قرهي الكتاب كتابك بأيديهم كعمود قرهي
ثم يقولون أرنهي هذا كان من عند الله إله يكتسب هذا وحي قرين ليشتروا به شيء قاسين يكون قطان ثمنا قيمة قليلا ويا الدون يكون قطان marka adduun waxa ma aha si kastay u badan tahay boqolaal sano lagu noolay xoolo dhan gacanta lagu galiyo boqortooyada lagu siiyo waa thaman qaliil ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala wama alhayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur fawaylun wa adin nareed ay allahum usquna kuwas mimma ki katabat aydihim ay gacmooda qoran darteed iyo waylun lahum wa adin nareed usquna mimma ki yaksibun halag ba usqunaaday waxay kasbadeen dartii waxay kasbadeen dartii ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dana uu cadeynaya bedelkii ay sameeyeen iyo kitaabkii ku ciyaarayeen qul waxaa nabiyow man waake kaasoo anzala soo dejiyey alkitaaba kutubtii kitaabkii tawraat alladii kaasoo jaa bihi muusa uu la yimid xaaluu yahay nuuran iftiin iyo wahudan hanuun linnaasi dadku yahay tajcaluunahu aad ka yeelaysaan qaraatiisa warqada aad wax ku qorataan aad ka yeelaysaan waraaqa aad ku tasarrufaysaan aad bedelaysaan macnihiis iyo lafdiga aad bedelaysaan kitaabkaasi yaa soo dejiyo saa aad yeelaysaan tubduunaha wixii hawadiina ay waafaqdo oo jeceshiina aad dadku u daahirinayseen wixii aydan rabinna wa tukhfuuna aad qarinaysaan kafiiran in badan oo naftiina rabin oo hawadiina khilaaftay ka aad qarinaysaana badan wala lahda yahuud way ogyihiin kuwa waqtiga rasuulka la noolaa qul waxaa man waakeen alladii kaas anzala soo dejiya alkitaaba kitaabkii alladii kitaabkii jaa bihi muusa la yimid nuuran xaalu yahay iftiin iyo wahudan hanuun linnaasi dadku u yahay tajcaluunahu aad ka yeelaysaan qaraatiisa waraaqa aad qoraysaan tubduunahaa aad muujinaysaan towreed wixii hawadiina ay waafaqdo oo towreed ku qoran waad muujinaysaan wa tukhfuuna waad qarinaysaan wixii hawadiina khilaafa ay waxaad rabteen khilaafana waad qarinaysaan كثيرا إن بدن تاسعنا بدن واحد قرن إنسان واحد ممكن إنسان ويرت واحد ممكن إنسان ويرتها إلهي وصي وذا سبحانه وتعالى لمن كاسي وفضحين يعني تبتاسي كهلا وإن منهم يهود كواسي وحاكمده لفريقا كوح يلوون اللي حينها ألسنتهم عرب كوضة بالكتاب كتاب إيه معنيه كبدلها لفظ جيسة كبدلها لتحسبوه صاد ليسان من الكتاب كتاب ما دام أي ضدك إسكاليين علماء أي كتاب كي يقانون أي كتاب كي عرب كود كل حنين لفظ اللي حنين معين واللي حنين سيأضوم ليسان من الكتاب كتاب إنه كبديها كتاب كتوراة سإنجيل وما هو من الكتاب إلهي عليه كتاب كمدوها ويقولون ويقرون هو كاسي من عند الله إلهي يكتشف هذه وما هو من عند الله إلهي يكتشف هذه ويقولون ويقرون على الله إلهي كل الكذب بين وهم يعلمون إيوه ويؤجهن وأهل الضلال ويان يعني الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي لو يديسنها يقوعنا قال لك جدكم نمرين المغضوب عليهم هو يهود وين لأنهم إيوه علماء أي دينت إلهي كلا حين جدك إلهي كلا حين نعم ما كانوا مسقنا لبشر بشر أن يؤتي الله إلهي نوصي الكتاب كتاب وصي والحكم حكم وصي والنبوة بالنماء ثم يقول أوله للناس ذاتك كونوا عبادا لي أدوما إيه النقرة من دون الله إلهي سكذي أنا أدوما إيه النقرة مركا كتابك إلهي هدي بدلين معناهان إيه لبدي أهان إيه بدلين وحيلين أنا كتابك وحي يقال النقدين وحي كو عمل فلان ضدك يقال سي أدوما النقدين كاتانا ومسكنا عن الروح إلهي وصادري إن أصار له إن كساب بدلين مركا إلهي النقران كله يا أهل الكتاب كتابك إيه الكيس هو يهودي النصارى قد جاءكم وإذين يمد رسولنا رسول كان نبي محمد يبين حاله هي لكم من عدين هي يدينك كثيرا إن بدن ومما كي كنتم على هيدين تخفون كوي قريبا من الكتاب تبتلين كسو دجيي وحي أبقرين جرتين وحا إذين صدر النبي إذين عدين إن بدن ويعفو عن كثير وحبضنا والذين لا فهي قد جاءكم وإذين من الله إلهي حقي نور النور وكتاب كتاب كاسو مبين عد يهدي به الله إلهي وكهن هاي كتاب كاسي من اتبع روح الراعو رضوانه وح إلهي رالي قلنا روح الراعو
حقوق هنونا إلهي سبل السلام جدك توسنا ويخرجهم إلهي وكقصر إيه سبحانه وتعالى لأجل أنهم اتبعوا ما يرضيه إلهي وحرا لقلنا الراعين وكقصر إلهي من الظلمات مجديالك إلى النور أصار بإذنه إلهي سبحانه وتعالى ويهديهم إلهي وكهنوننا إلى صراط جد مستقيم أتوصا أيضا وصيوة لقد كفر الذين كوا قالوا بي قالوا يلي كهذي إن الله أل هو المسيح ابن مريم والنبي الله عيسى إلهي وكاسم ينقول إلهي ويقالوا بين مركا ليش وحكو عدينا شيخو إنه إلهي كتب سودي جي رسولنا أصولي بي كتب تاسنا إي جيران أي واجب تاها إن لهميو وحي كردلان هايو إيو ملاح كردلان يسو نو شيء دونا كتب تاسو توراة وإنت نقانو إيو إنجيل إيو زبور إيو صحف إبراهيم موسى إيو كتاب أنك إلهي نو كرامي أو خاتم النبيين نوغو سو ديبي كتاب كاسو دادك هوران لو شاقي أي أغايين أي كتب تودي إلهي إيو حصار أي حفظيان أي وحبا كبدلين لكن كتاب كان إلهي وكو ختمي كاسو إلهي سبحانه وتعالى وإلهينا كو حفظي الدينتا وحي هراء ولا بدلين كتاب كان لغو عدي وحبا وكمن إلهي ورافي كواسي انتا سنوع عدينا يا كتاب كمان تعاوى درسيين انتا سكوئي صلى الله وسلم على نبينا محمد إلهي خير كان وافجيه دنبقين دنب والد كما ضاف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واقسمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلوم بها شعثنا وتذهب الفتن عنا اللهم احفظنا بالإيمان والهدى قائمين وقاعدين وراقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين dadka akhyaarta ee meesha isugu imaada dhammaantood ee darsiga dhegeysanaya ka faa'iideysanayo Allah u dambi dhaafo khayr badan Allah waafajiyo dadkii awlaad ilaahay siiyeen awlaadooda Allah u barakeeyo sharta adduun iyo shar aakhira Allah ka ilaaliyo kuwa awlaad aan la siinina awlaad barakeysa Allah siiyo kuwa reer inay samaystaan doonayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajeynayo khayr badan iyo guri karaamo leh Allah u barakeeyo guri karaamo leh Allah siiyo iyagana Allah ku dhaqaalayo kuwa muxuu jidka ilaahay ku toosnaan Allah ka dhigo diinta ilaahayna barta ku camal fala oo u quma khidmada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalahoodna garab qabta ee ugu yeero khayrkan ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala haydii waan dambi dhaafo dhammaantiin wasala allahu wasalama على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم